وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس وحنبار واجبكيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. كسر دواد أرضي حسدني ومع إسماعيل ومعددني بالشجع وبرنامج كني خبرها وده تكرسوا عن شيء سنتيفيك قرنها هي إذا عاد قرن كريدي هرجيسة وحسدني يوم بركله وفورم 1 حسدو lesson كي كوبات chapter 1 chapter كانوا ما تقاضين نوع introduction to biology وهرجع كوساب صار بركة محي biology وتهرم كي بركة محي كوبات أو تهرم كلا بدك في الواندا مايناي مركا تهرم كوبات وحكي بلابا مركا chapter كا introduction to biology أوكي وحين إيجينا ما أنت إنه قادم دورنا كوساب سي هاي chapter كينني ومحي biology محوي هاي biology يا branches كا أما هذه ترى أنت بدن قيبها وقيت بسمه يو actually biology يميدو البمركا محي definition كده أيه إنه قادم دورنا أوكي biology وحلا هذا وعلمي barashada markaa maxay noolaha iyo nolosha cilmiga barashada noolaha marka leenahay dhammaan living organism ama geed ha noqdo ama xayawaan ha noqdo ama ha noqdo actually maxay ilma aragti kale oo aynan arkeynin ama ishaynu qabanaynin okay marka biology is the study of life and living things why is the study of life waa barashada marka maxay nolosha iyo the living things ama living organism noolaha dhan ayuu ku saabsan yahay inta badan isagu ma khuseeyo ama kuma taxalluqo hadii jir inta badan wixii objects ama non living things inta badan isagu ma khuseeyo haddaad aragto waxyaabaha hadii jir inta badan biology ku dhex jira oo ma noola ah waa wax isaga actually saameyn kule ama saameynaya laakiin ma aha miduu isagu hadii jir inta badan u ka hadlaayo okay kelmadda markaa baxay biology waxaad arkaysaa laba eray ayay ka kooban tahay waa bio iyo logy marka laba Greek word ka timi erayga bio macnaheedu waxa weeyaan markaa maxay waa life ونولشي هالك لوكسنا أو إرى جريجا أيتا actually لوشي معناه يدوي حويا مركا محي واستدي وبرشو مركا وبرشة ده مركا محي نولشها biology وحي نكوغ يحي كرنا therefore is the study of life سيدو كلا وحي نكوغ يحي كرنا is the study of living things وبرشة ده هذا يشتري انت بدل محي living things كأمر نولها مركا لبدا Greek words كابي كتبي من ناي life كتاي من ناي تاي مركا محي study biology does not concern ma khuseeyo isagu ama kuma taxalluqo with non-living things macnaha wixii hadii jir inta badan noolayn isagu ma khuseeyo ama hadii jir inta badan kama hadlo okay haddaad aragto baan ku yiri wax hadii jir inta badan ku dhex jira oo ka hadlayo oo non-living sida hawada sida hadii jir inta badan waxyaabaha kale waxa weyn actually waa wax isaga markaa saameyn ku yeelanaya noolaha brancheska ama noocyada u qaybsamo markaa maxay biology biology waa hadii jir inta badan saynu soo sheegnay waa cilmi kamid ah markaa science-ka oo waliba actually ah markaa maxay natural science sidoo kale ka sii mid ah markaa maxay life science weey okay way markaa branches of biology waxa kamid ah markaa maxay zoology waa barashada markaa maxay animalska in animalska la barto ama xayawaanka hadii jir inta badan barashadiisu waxa loo yaqaan markaa maxay zoology baa la yiraahdaa zoo means animal logy means study marka is the study of animals barashada animalska waxa loo yaqaan maxay zoology baa la yiraahdaa botany is the study of plant waa cilmiga markaa barashada dhirta is the study of plant barashada actually maxay dhirta plantska ayaa loo yaqaan markaa maxay botany loo oranaya okay microbiology
study of microscopic organism waa barashada markaa maxay waxyaabaha ilma aragtiga ah oo micro waa small organismska actually ama noolaha ayaa had iyo jeer inta badan noolaha aan ishu qabanaynin oo organismska had iyo jeer inta badan wuxuu ka kooban yahay qaar hal cell qaarna cells ama unugyo fara badan oo kale ayuu had iyo jeer inta badan uu ka kooban yahay marka kuwa aan isheenu qabanaynin barashadooda waxa loo yaqaana markaa maxay microbiology branchka biologyga la xidhiidha okay anatomy waa study of internal structure of organism waa barashada markaa maxay qaab dhismeedka gudaha ee had iyo jeer markaa maxay organismka actually ama nooluhu uu leeyahay halkan waxaad kala arkaysaa morphology morphologygu waa qayb ka mida markaa maxay ama waa laan ka mida laamaha biologyga oo la xidhiidha markaa maxay formka ama sizeka had iyo jeer inta badan shape and the size of an organism ayaa actually ay ka hadlaysaa morphology is the study of the form of organism form markaan leenahay size and the shapeka iyo had iyo jeer inta badan ama qaabka iyo xajmiga organismka had iyo jeer inta badan laanta ka hadlaysa ama qaybta ka hadlaysa ee ka mida biologyga waxa loo yaqaana morphology physiology waxaa la yidhahdaa actually physiology was the study of function of an organism shaqada organismka ka socota barashadiisa waxa loo yaqaana markaa ama geed ha noqdo ama xayawaan ha noqdo waxaa la yidhahdaa markaa maxay physiology baa la odhanaya is the study of the function of the organism biochemistry is the study of chemical reactions is the study of chemical reactions waa barashada falgalada kimikaad oo caring ka dhacaya in organism waxaa loo yaqaana isagana biochemistry baa la odhanaya is the study of chemical reaction barashada falgalada kimikaad ee ka socda markaa maxay oo caring macnaa ka dhacaya in organisms waxaa loo yaqaanaa biochemistry baa la yidhahdaa embryology isaguna waa qayb ka mida ama waa laan ka mida laamaha biologyga oo ka hadasha markaa maxay kobcidda ilmaha yar ee ku dhex jira actually maxay uurka hooyada siduu u korayo ama u kobcayo laga soo bilaabo ilaa bacriminta maalintii u galay ee la bacrimiyey ee labada had iyo jeer inta badan unugee ka kala yimi labada waalid ay isu tageen ee uu soo baxay zygote-ku ilaa iyo intuu ka dhalanayo ama uu ka dilaacayo had iyo jeer inta badan is the study of development waa barashada markaa kobcidda ama siduu u tadawurayo of animals from fertilization bacriminta to pairs ilaa markaa uu ka dhalanayo or hatching okay ecology weli laamihii biologygaynu ku jirna ardayow ecologyguna waa qayb ka mida ama waa laan ka mida laamaha biologyga oo la xidhiidha markaa iyaduna barashada markaa maxay deegaanka noolaha ku nool iyo xidhiidhka markaa maxay ka dhexeeya is the study waa barashada of relationship macnaa xidhiidhka ka dhexeeya between organisms and their environment cytology waa barashada unuga iyo qaab dhismeedkiisa unuguna waa waxa ugu yar ee uu ka samaysan yahay markaa maxay nooluhu cytology is the study of the structure of the cell is the study waa barashada of the structure macnaa qaab dhismeedka of the cell unuguna waa waxa ugu yar uu ka samaysnaa nooluhu uu ka samaysan yahay ayaa loo yaqaana markaa maxay unug la yidhahdaa ama cell la yidhahdaa barashadiisana waxa loo yaqaana markaa maxay cytology baa la odhanaya cyto means cell logina means maxay study okay molecular biology iyaduna waa laan kale ama waa qayb kale oo ka mida brancheska ama laamaha had iyo jeer inta badan biologyga is the study of chemicals waa barashada had iyo jeer inta badan waxyaabaha kimikaad ama chemical component from which cells are made taasoo markaa maxay unugyadu ay ka samaysan yihiin markaa okay genetics iyaduna waa laan kale weliba waa laamaha ugu waaweyn had iyo jeer inta badan biologyga waxay ka hadashaa markaa maxay barashada hiddaha ama astaamaha ka gudbaya waalidka ee u gudbaya ubadka ay dhalayaan ama offspringska waxa la yidhahda ay soo saarayaan ama fac ka gudbayo fac kale u gudbaya macnaha jiil buu ka gudbaya jiil kale u gudbaya is a study of the way waa barashada habka the trait markaan leenahay waa astaamaha of an individuals macnaha organismka are transmitted ay u gudbinayaan from one generation hal jiil ama hal fac to the next taxonomy waa ablaableynta xayawaanka ama u abtirinta xayawaanka ayaa loo yaqaanaa markaa qaybtan taxonomy waa laan kale oo iyaduna ka mida markaa maxay laamaha biologyga waxay ka hadashaa u abtirinta ama abtirsiinta xayawaanka ama group garaynta had iyo jeer inta badan xayawaanada dunida ku nool in la qaybiyo qayb walba iyadoo la isku raacinayo siday isugu had iyo jeer inta badan maxay egyihiin ama astaamaha had iyo jeer inta badan si ay u wadaagaan is the science
waa cilmiga of classifying lagu kala saaro organismska ama noolaha. Pathology pathologyga waxaa la yidhahdaa markaa maxay waa barashada markaa maxay xanuunada iyo had iyo jeer inta badan saameynta ay keenaan iyo calaamadahooda waxa loo yaqaana actually pathology is a scientific study waa barasho had iyo jeer inta badan cilmiyeed oo ku saabsan diseaseska ama xanuunada iyo abnormal structure and function iyo shaqada iyo qaab dhismeedka organismka oo abnormal noqota ama aan had iyo jeer inta badan sidii loogu talagalay u shaqaynaynin iyo weliba symptomska ama calaamadaha. Okay, halkaa waxaa inoogu xigaya waxa la yidhahdaa marka characteristicska living organism ama living thingska ayaa inoogu xiga. Okay, characteristicska living things baa inoogu xigaya. Characteristics of living things. Waxaa la yidhahdaa markaa nooluhu waxyaabaha lagaga sooco ma noolaha ama ay kaga duwan yihiin waxyaabaha aan noolayn waxay leeyihin actually maxay characteristics 7 astaamood. waxaa jira markaa 8 or 7 characteristics 8 characteristics baa jira ay wadaagaan dhammaan nooluhu ay wadaagayaan. waxaa ka mida markaa inay for example sameeyaan gross inay sameeyaan waxa la yidhaha reproduction taran inay sameeyaan waxa la yidhahda respiration koritaan iyo taran iyo sidoo kale maxay tamar dhalin iyo waxa la yidhahda markaa for nutrition ama feeding quudasho feeding waxaa la yidhahda excretion sensitivity or sensitivity okay, koritaan, reproduction, respiration, nutrition, excretion, sensitivity waxaa la yidhahdo gases exchange okay, waxyaabaha ama characteristicska living organism ay kaga duwan yihiin had iyo jeer inta badan maxay non living thingska waxaa ka mid ah astaamahan bay had iyo jeer inta badan ay leeyihiin inay organismku ay sameeyaan gross ama ay koraan inay tarmaan inay sameeyaan respirationku actually waa tamar dhalin oo cunada had iyo jeer inta badan habka tamarta looga dhaliyo ama looga soo saaro si organismku u helo tamar uu ku koro waxaa la yidhahdaa marka respiration. sidoo kale nutrition ama feeding waxa la yidhahdo cunno quudasho excretion qashin saar sensitivity iyo dareemis gases exchange okay inay had iyo jeer inta badan isdhaafkii hawada ay actually ay sameeyaan iyo waxa la yidhahdo markaa maxay movement okay, waxaynu intaa ku xasuusan doonaa inta badan 7 ayaa ugu muhiimsan. waxaynu ku xasuusanaynaa ereyga yar arday aad ku qaybi doontaa masses grain wuxuu kuu soo koobayaa 7 astaamood ee ay leeyihiin dhammaan noolaha oo dhami ay wadaagaan ay sameeyaan actually maxay lagu garanayo waxaan inuu actually noole yahay. waxaa ka mid a markaa maxay ereygaas ama gabadha magaceeda masses grain oo ah movement, respiration, sensitivity, gross waxaa la yidhahda markaa reproduction, excretion iyo nutrition. mt waxay u taagan tahay markaa maxay movement r2 waa maxay respiration ama reproduction s2 waa sensitivity g2 waa gross r2 waa reproduction e2 waa excretion inta u dambaysaana waa nutrition markaa 7 astaamood baa inta badan ugu caansan. waxaa la yidhahdaa markaa non living thingska qaar ka mid way samayn karaan actually astaamahan laakiin waxyaabaha had iyo jeer inta badan imika gaadhigoo kale dee wuxuu samaynayaa waxa la yidhahdo markaa respirationka wuu samaynayaa oo had iyo jeer inta badan tamar dhalinta wuu samaynayaa oo shidaalkii buu gubayaa si uu soo saaro energy ama tamar uu ku socdo ama power uu ku socdo.
qashin saarkii wuu samaynayaa dareenkii actually waa leeyahay sensitivitygii movementkii ama dhaqaaqii waa leeyahay okay laakiin muxuu kaga duwan yahay oo aanu hadee jir inta badan noolaha aanu ku gaadhaynin oo aanu samaynayn actually waxa la dhahdo gross de gaadhigii actually gaadhi kale ma dhalayo ama reproduction oo macnaa ma tarmayo mana korayo oo gaadhigii yaraa gaadhi weyn kuu noqon maayo for example waa astaamaha hadee jir inta badan maxay u gaara actually living things waxaa ka mid a gross and reproduction ayaa hadee jir inta badan u gaara oo kaga duwan yahay actually maxay de non living things uu kaga duwan yahay okay bal intaa midmid aynu u yara eegno markaa exampleskooda okay waxa ugu horeeya marka all living things have waxay leeyihiin 8 characteristics 8 astaamood ama life process baa la yidhahdaa markaa habnololeed waxaa ugu horeeya markaa movement dhaqaaq inay sameeyaan animals move xayawaankii way socdaan ama way dhaqaaqaan by using iyagoo isticmaalaya their legs lugahooda wingska baalasha ama se finis baalbiyoodyada finiska waxay isticmaalaan inta badan kalluunka wingiskana had iyo jeer inta badan shimbiraha ama aviska legskana had iyo jeer inta badan other animalska kale sida human ayaa isticmaalaya okay waxaa la yidhahdaa markaa movementka ama dhaqaaqa waxaa loo qaybinayaa actually maxay laba qaybood movementka laftiisa laba qaybood baa loo qaybiyaa types of movement types of movement types of movementka waxaa loo qaybinayaa maxay waxaa la yidhahdo locomotion iyo waxa la yidhahdo markaa localized movement labadaa qaybood baa loo qaybay locomotion waxaa la yidhahdaa waa movement from one place to another dhaqaaqa organismku uu meel ka dhaqaaqo uu meel kale u dhaqaaqo waxaa la dhahdaa markaa locomotion okay localized movementna waxaa la dhahdaa waa inuu isagoo taagan oo aanu meel ka dhaqaaqin oo meel kale qabanin uu qayb ka mida for example waxa weye dhaqaajiyo movement is the movement of one part of an organismka qayb ka mid inay dhaqaaqdo waxa loo yaqaana markaa maxay localizer baa la yidhahdaa marka labadaa qaybood baa loo qaybiyaa halkaa markaa waxaynu uga jeednaa inay had iyo jeer inta badan dhirtu ay samayso waxaa la yidhahdaa markaa maxay localizer movement bay samaynaysaa halka markaa maxay uu xayawaankuna samaynaya inta badan waxa la yidhahdaa locomotion dhirtuna waxay samaysaa markaa localizer movement oo waxay u socotaa ama xagga had iyo jeer inta badan carrada iyadoo ka raadinaysa markaa water and minerals ama actually waxay u socotaa towards the sunlight iyadoo cadceeddii had iyo jeer inta badan maxay raadinaysaa okay markaa waxaan leenahay plants move dhirtuna waxay u dhaqaaqdaa by growing iyadoo u korayso towards inay ku wajahnaato or away from the stimuli inay caraskii ku dhaqaaqda ama ay ka soo cararto for example halkaa waxaad ku arkaysaa laba example oo movement ah kii xayawaanka oo faraskaas waxaad arkaysaa inuu ordayo ama cadow ha ka cararo ama wax kale geedkaa waxaad arkaysaa isaguna inuu korayo oo u socdo xagga had iyo jeer inta badan cadceedda ama ilayska cadceedda uu u qalloocsamay had iyo jeer inta badan geedkii marka labadaasiba waa laba dhaqaaq oo ay sameeyaan markaa maxay xayawaanku kaasina waa locomotion kan kalena waa localizing movement halka feeding qaybta labaad ama astaanta labaad feeding animals feed animalsku markaa waxay u quutaan to produce energy si ay u soo saaraan markaa maxay tamar and grow una koraan okay haddaba animalsku had iyo jeer inta badan iyagu cunadooda waxay ka raadsadaan other organism kale inay isticmaalaan si had iyo jeer inta badan tamar uga helaan unuguna koraan they eat waa animalska loo jeedaa other living things waa kuwa loo yaqaano markaa maxay heterotrophiska ama consumerska oo iyagu had iyo jeer inta badan waa la quudiy oo halka waxaad arkaysaa diibkaasi waa xayawaan markaa saxaraha ku nool wuxuu cunayaa markaa maxay xayawaan kale ayuu cunayaa siduu uga raadsado markaa maxay cunadiisa tamarna uga helo uguna koro plants make their own food iyagu dhirtu waxay samaystaan markaa cunadooda by photosynthesis habka cunno samaysiga ayay ku samaystaan okay growing koritaankii ama grosskii animalsku waxay ku kala duwan xagga koritaanka dhirta iyo had iyo jeer inta badan xayawaanku waxaa la yidhahdaa animalku wuxuu koraa had iyo jeer inta badan certain limit ama limit cayiman
ama in cayiman buu had iyo jeer inta badan koraa oo markuu meel gaadho for example koritaankiisi waa istaagaa laakiin geedka had iyo jeer inta badan wuu korayaa koritaankaasina isma taagayo intuu nool yahay waa soconayaa un hadduu had iyo jeer inta badan helo markaa environment fiican biyo iyo had iyo jeer inta badan nafaqa hadduu helo marka animals grow way koraan until they reach ilaa ay gaadhayaan certain height markaa cayiman ay gaadhayaan okay plants grow dhirtu iyaguna way koraan continuously markaa si joogtaa through their lives noloshooda dhan bay had iyo jeer inta badan maxay ay korayaan halkaa markaa labadii example baad ka arkaysaa ilmaha yar buu ahaa marka hore qaabkaas u koray marka dambe adultkaas u noqday koritaankiisina waa istaagaya okay geedka waxaad arkaysaa wuxuu ka soo bilaabmayaa iniin deetana saas uu soconayaa ilaa iyo uu had iyo jeer inta badan qaabka u korayo weliba isma taagayo koritaankiisu waa had iyo jeer inta badan koritaankiisu actually waa continuous growth way waa respirationka tamar dhalin respirationka waxaa la yidhahdaa waa habka tamar looga dhaliyo cunnada la cunayo respirationkuna wuxuu u baahan yahay actually cunno iyo oxygen ayuu u baahan yahay okay living things need energy living things waxay u baahan yihiin markaa maxay tamar to grow say u koraan to move una dhaqaaqaan and to enable u awoodaan markaa body to work inuu jidhkii markaa shaqeeyo si saxa u shaqeeyo energy is released from food energyga laga sii daayo tamarta ama processka looga sii daayo ama habka looga sii daayo waxa loo yaqaana marka respiration baa la dhahaa energy is released from food in a process called respiration tamarta waxa looga sii daayaa cunnada habka loo yaqaano respiration loona yaqaano tamar dhalin excretionku waa habka organismku u saaro qashinka u saaro sida for example oo kale maxay kaadida sida carbon dioxide-ka sida saxarada kuwaasoo kale si u saaro waxa loo yaqaana excretion baa la dhahdaa marka dhammaan nooluhu waxay sameeyaan excretion inay qashinka saaraan all living things produce waste waxay saaraan marka iyaguna maxay wasiska ama wasakda such as carbon dioxide sida carbon dioxide-ka urinta kaadida feces-ka iyo saxarada the removal of waste tuurida wasakda from the body is called excretion imka halka xayawaan baad ku aragtaa ama baad ku aragtaa wuxuu sameynayaa laba qashin saar mid oo arkaysaa actually feces buu saaray oo ka saaray actually maxay anal canal ama dabada uu ka saaray waxaad arkaysaa oo kale inuu haraariyoonayo wuxuu sii deynayaa actually maxay de carbon dioxide ayuu had iyo jeer inta badan uu ka sii deynayaa afgeesanka okay marka labada qashin saar buu markaa uu sameynaya taasna waxa la yiraahdaa marka astaantaasi excretion iyaduna ayay ku saabsanayd astaanta kale ee lixaad response organism kastaaba ama ha noqdo geed ama ha noqdo xayawaan wuxuu sameeyaa wax la yiraahdo sensation ama dareen isagoo isticmaalaya special sense organ xubno dareen oo gaara isagoo isticmaalaya animals wuxuu isticmaalaa sense organiska ama xubnaha dareenka sida dhegaha carabka isha waxaasoo dhan had iyo jeer inta badan u isticmaalaya okay to respond si uga jawaabo what's going on macnaha waxa hareerihiisa ka socda ama dibadda for example ka socda ama areadiisa ka dhacaya ku dhow okay halkaa imika waxaad ku arkaysaa deeradaasi for example dhawaaq bay maqashay wataa eegtay waxay isticmaalaysaa actually maxay laba dareen markaa indhaha iyo sidoo kale markaa maxay dhegaha okay reproductionku waa habka organismku u soo saaraan organism kale oo lamida astaantani waa astaan ka mid a astaamaha living organismku uu leeyahay dhammaantii waayo haddii aanay jirin waxa la dhahda reproduction organismku uu dabar go'i lahaa ama waxa ku dhici lahaa waxa la dhahda extinction markaa si aan taasi ugu dhicin waa inuu organismku markaas sameeya waxa la dhahda reproduction ama taran all living things must reproduce macnaha organism kasta waa inuu markaa tarmaa to replace siduu markaa maxay u bedelo those that die kuwa dhimanaya markaa isaga markaa maxay organismka markaa maxay uu soo saaray halkaasi waa asexual wey asexual reproductionku lama xidhiidho isagu markaa maxay sexka ama jinsiga okay waxaynu eegi doonaa markaa unitka kale aynu ugu xigaa waxaynu eegi doonaa waxa la yidhahda markaa maxay cell oo 1.3 ah cell and the microscope selka iyo sidoo kale waxa la yidhahda microscope selku waa waxa ugu yar ee nooluhu uu ka samaysan yahay ama uu ka kooban yahay baa la yidhahdaa markaa maxay cell oo dhammaan living thingska marka laga reebo waxa loo yaqaano viruska
wuxuu hadee jir inta badan uu ka midaysan yahay dhammaan all living things are composed of cells dhammaan noolahoo dham inay ka koobayeen actually waxa la yidhahdo cells microscope-ku waa weynayso ama hadee jir inta badan waxyaabaha lagu eego ama lagu arko maadaama salku aad u yar yahay kana awood badan yahay hadee jir inta badan ama awood aan lahayn isheena inaynu ku aragno waxaynu adeegsanaa waxa la yidhahdo markaa weynaysada loo yaqaano markaa maxay microscope-ka cell is the basic unit of living things waxaa la yidhahdaa waa basic unitka ama waxa ugu yar ee living thingsku ama nooluhu uu ka kooban yahay ama uu ka samaysan yahay ayaa loo yaqaana markaa maxay cell waxaynu kalena odhan karnaa cellku is the smallest unit of all living organism okay waxaa la yidhahdaa markaa maxay waa waxa ugu yar weliba shaqa ahaan iyo qaab ahaanba waa waxa ugu yar ee dhammaan noolahoo dhami uu ka samaysan yahay ayaa la yidhahdaa actually maxay cell la odhanaya okay organisms waxay ka kooban yihiin markaa organisms waxay ka kooban yihiin contain one or more cells hal ama in ka badan oo unug ayuu ka samaysan yahay waxa la yidhaha organismku wuxuu ka koobnaan karaa hal unug sidoo kale wuxuu ka koobnaan karaa wax ka badan ayuu actually ay ku samaysnaan karaa ama uu ka koobnaan karaa organismka ka kooban halka unug organisms that composed of one cell is called waxaa loo yaqaanaa is called unicellular baa la yidhaha unicellular hadduu organismku ka kooban yahay hal unug sida for example oo kale maxay bacteriada hadduu hal unug ka kooban yahay waxa la yidhaha unicellular uni means waa one cellularna actually waa cellka wey maadaama aan isla garanay inuu cellku yahay waxa ugu yar ee nooluhu hadee jir inta badan uu ka samaysan yahay uni waxaan nidhi actually maxay waxaan leeyahay organism ka kooban halka unug waxa loo yaqaana markaa unicellular organismska ka samaysan organisms that contain ka kooban markaa maxay many cellskana waxaa loo yaqaana maxay are called multicellular baa la yidhahdaa organismska ka samaysan unugyada faraha badanna waxaa loo yaqaana markaa maxay multicellular ka kooban halka unugna waxaa la yidhahdaa markaa maxay unicellular baa la odhanaya okay maanta xiisadeennu halkaas inoogu joogi doontaa intaynu xiisadda kale ee ku xigta aynu ku kulmi doono waxaan idkaga tegaya ardaya assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay waanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku werwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahadsan mayno waaban mayno warwareegi mayno